in la kaxeeyo gudoomiye degmada Walaweyn oo shaqada laga joojiyay Maxamed Siido Cabdiraxmaan isla markaana ciidanka booliska Soomaaliyeed baaris dhameystiran ku sameeyaan doorkii uu ka lahay gabadfaladii ka dhacay degmada Walaweyn iyagoo natiijadii ka soo baxda u gudbin doona maxkamadda awoodda u leh 6 hay'adda baarista dambiyada booliska Soomaaliyeed CID-da qaybaheeda Muqdisho iyo Baydhabo ay furaan galdacow ciqaabeed oo lid ku ah xildhibaanada kala ah xildhibaan aadan cabdi faarax kala dir oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabelle 2 xildhibaan Mayo Mustaf Xasan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed 3 ex xildhibaan Maxamed Taraafik oo ka tirsan xildhibaanadii hore baarlamaanka Koonfur Galbeed kuwaas oo baarista hordhac ah ee la sameeyay lagu ogaaday inay jirto baahi loo qabo in cadeemo laga qoro sida daraadeed waxa lagu wargelinayaa xildhibaanadaas inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu tagaan xarumaha baarista iyadoo maamulada ay ka tirsan yihiin laga dalbanayo inay diraan si loo dhameystiro baarista guddiga inuu hor yimaado xafiiska xiriirlaanta ciidamada qalabka sida gaashaan la xooga dalka Salaatifo oo ah abaanduulaha guutada 7 si su'aalo loogu weydiiyay qaybta uu ka lahay gabadfaladii ka dhacday degmada Walaweyn 8 in ciidanka xooga dalka oo gacanta ku soo dhigo isla markaana uu hor keenay sharciga Cabdi Nuuno Afweyne oo ah horjoog ka ah maleeshiyaad ku dagaalamay degmada Walaweyn